بسم الله هني الجبن وقتي بعد من وقتي بعد هاي ستا مدوا هديبا ساكا اتسوك عضي oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adoo caafimaad qaba uu kuu sahlay inaad soo kacday stiil waxaad haysataa waqti dembiyadii inaad ka soo noqoto waqti aad u haystaa imilooyinkaagii meelaha tiigsanaysa inaad gaarto waqti baad u haystaa qofkii aad xumaysay inaad raaligelin weydiisatid waqti baad haystaa hantidii aad dhacday iyo xoolihii aad dadka ka qaadatay iyo ijaafadii aad u geysatay inaad u celisid oo aad maslaxa ka doontid arrintaasna waqti aad u haystaa so it's never ever over ma aynan dhammaanin ku xisaabtan ha isdhihin waqtigu waa dhammaaday ha isdhihin it's too late no it's never too late 10 jir ahaw 20 jir ahaw 60 jir ahaw still waxaad haysataa fursad projectyada ugu waaweyn adduunyada waxaa la bilaabay xilli dambe oo nolosha dadka qaarkood ganacsiga waxay ku bilaabeen 60 guusha ay gaareen malin qola qaarkood waxay ku bilaabeen 50 waxa weeye waxay sameeyeen malin karta marba hadii waaga uu ku bariyo oo wali aad noosho naftu ay kugu jirto fadlan uga faa'iideyso cibaado badan amal badan oo wanaagsan inaad ku dadaashid gaaritaanka noloshaada iyo inaad hore u riixid mashruuca aad leedahay waxyaabaha cajiibka inaga muslimiinta aan haysano waxa kamid ah oo aan inagu noo xisaabnay flight baan soo raacay ayaan dhaxdaas uu dheeraa 9 saacadood iyo something u ahaa habeenkii oo dhan soo soconay habeenkii hurda ay qabatay waa iska seexday seexasho ma jirtay desaasa qoorta ku laabanta waa iska rafaadsan tahay goor dambe ayaan waxaan arkayaa sawaxan diyaaradda dhexdiisa oo dadka qaarkood ay sacbatumayaan oo dadka qaarkood muxuu ahaa ay sheeg yes ay leeyihiin tan soo kaconsaan u fiiriyaba ma fahmin daaqadii furan halkaas ayaa waxa ka soo jeeda qoraxdi oo nagu yara aadan oo iyadoo quruxdeedii iyo calaamadihii muxuu kalradii isku jira ay leedahay waxa ay u dabaaldegayaan oo ay u qaylinayaan waa qoraxda soo baxday iyo inuu soo dhawaaday xilligii muxuu ahaa digitaankii oo meeshii loo socday destinationkii loo dhow yahay ni ag fadhiyaan weydiiyey what's going on ayr markaas wuxuu yiri wuxuu dhahay maalin cusub ayaa timi okay bas kaliya fikri waxaan ajiib maalinta cusub ayaba saan ugu farxayaan ilaahigi subhanahu wa ta'ala mugdigi aan ku jirnay kala furayna ma yaqaanaan masaakiin weey marka inagu nicmaysan marka kadib waxaan ila alxamdulillah kadib aan intaan musqushi galayaan salaadii subax dukadayo tartiibteedii habaystay marka it's never late hadiiba ayadoo la saaran yahay 40,000 oo feet waa baryay loo dabaaldegayo la farxayo adigii maxay kula tahay oo dhulkaaga joogo gurigaaga joogo reerkaaga la joogo mashruucidaadii wato aadayo waa kastana uu ku bariyo still niyo jabsan iska daaniyo jabka it's never too late hadda ka faa'iideyso shaqo kasta oo ku taala hadda qabo hore u socodsii never ever haniyo jabin ilaahi subhanahu wa ta'ala malada aad adigu ka leedahay ilaahay wanaaji wax walibana soo bir maanta oo nagu dooro aqoon lagu diyaarshay tiknoolajiyada casriga ah